مناسبة سوق مقابية وحالك السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الموضوع ما بحين مدحونين وجوجا لما تشاليده سيد غرف رمضان قولها شرفت رمضان له أسلوب وحسي وحلو شيء ياون سوماليلاند وركيدو دتي joogtaba oo heshaan laakiin guud ahaan marxalado badan bay ka soo gudubtay Soomaaliland intii taariikhdeedu jirtay maantana waxay maraysaa marxalad cusub marxaladaasi waxay u baahan tahay midnimo qaran أحسابته وترتميسا لكن waxaan u baahanahay arrimaha saameynta ku leh aqoonsiga iyo madax bannaanida Soomaaliland inaynu ka midaysnaano markasta waxaan kale u baahanahay inaynu ka midaysnaano axsaab xukuumad mucaarad iyo muxaafidba saameynta ku leh أمنية سلونية جمالية أنت واحد يقول بين اللبنان ريكا إلى الشركة أنا كغري لأنها وضع كتركيا ورانا في سوية مسؤولية عن هذا الشيء كاركو شركة وهذا Soomaaliland wadahalaas oo daba socday wadahaaladii ka horreeyay ee Ingiriis ka dhacay maadaama isbedel ku yimi Soomaaliya dawladda cusub laga sameeyay shirkaas waxa ay ahayd saddex wax baanu kala nimi rookow guud Soomaaliland warbixinadii iyo qodobadii heshiiyay iyo intoodii qalabka warbaahinta ayay soo geeyay ladaasi kastaba waa kaada sababa hawada hadlo waxa inaga cadaatay ay guul Soomaaliland wufuud wadahadii Soomaaliland runtii سحر الكسنما وضع هذلين دولة وجوجل شيء نوردك فرد موضوع ثاني اللي هم هذا وفد جاره الصومالية لفت جود واحد زيهين النظام الله كلامني ما حاول نمو تاكي كانوا والله قوم بدايسن ناقر waxaanu kala qornay anagoo midaysan ama xsaab inta xukuumad iyo baarlamaan ta kale saddexaad waxa weeye waxa kala soo noqonay runtii markaan uu qiso qam sare oo hamaamus marka xagga diblomaasiga la eego waxaynu u baahanahay guusha aynu kala nimid waxaan rajaynayaa in arrimaha kale aynu soo kordhana aynu wada tashi iyo midnimo ku gali doona hadii la ka dhigo waxaan rajaynaynaa sahanka aynu u tagnay halkaas inuu u yahay fure guusha Soomaaliland. Salaam alaykum. aad buu mahadsan yahay gudoomiyaha محمد
عبد الله عرو واتهاي إمكانه وحنو يري دورة وإسنادي جيسان سين دونا أي محمد